deedow bay u leeyihiin dhalinyaradu Soomaalidu waxay yiraahdaan wax afka walaalka ku wanaagsan baa jiro oo afkaaga aan ku wanaagsanayn marka hadii ay yiraahdaan culimadii iyo cuquushu ha noo hadlaan wax wanaagsan weey inaguna waxaanu leenahay ducada ka hor hala jabiyo guurka hala fududeeyo meelaha guurka la fududeeyo sinada ay yaraata mas'uuliyaduhuna way bataan أنا مسئنو ضد مشهوره مسؤولينا نقضى ترى كنا وبطاه ماشى هذه تشرسينا كوبا تنا ترى كنا ويرادا معصية دي عذرنا ويبطاه مسؤوليتنا ويرادا عالم الإسلامي دراسته لقوا سميه ضد كوجو فقير سن بقوا قربلا قدام هذا وجو فقير سن أما وجو ظروف هذاك بقوا قربلا دراسة مرة أنا أخرية موضوعنا وحكت ديارني دول العربية لبوا وطنوا شارع ومدينة إسكالاني بحاجة مالك مدينة آذو اللي سيهين عركي يروك يسوشرا ولبنان هي فلسطين فلسطين اللي يردوا ده بقول كيف الشن يسقاشن بحاصله شنو بان حاصله هاي لبنان اللي يردوا ده بقول كيف السقاشن بلا حاصل طبعاً بحاصله taasina waa keentay inuu Ilaahay barakeeyo iyadoo intaas boqolaal kun oo qof yahuudu dilayso inay dad dhaqan u yihiin oo malaayiin Ilaahay waxa kale uu ku barakeeyo law ka warhaya dadkiisa waxa dhashana wiilal baa u badan adduunyada dadka dhasha habla u badan laakiin iyaga wiilal baa Ilaahay ku arsaaqa waa badal ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه marka waxaanu leenahay inaga inaad u fiirsatay mooyaan miyigeeniyo magaaladeena miyiga guurba hada waa meesha iska xayraanka ah ee xoolaha yar haysta ee iska fuqarada ah in xushiya xaabada shiday habluhu maba gaaraan 18 jirba markiiba midba qafaalanaya guursanaya baalban dhaweed waxay ku cabanayeen hablihii de magaaladii bay naga galeenoo dabakaayooyin bay furteen dadaw noo soo celiya miyiga ku guursanay marka inantii xagga markay joogto suuqeedu waa xaami halkana waa istul bixeen marka waxaynu leenahay waxyaabaha ugu badan ee caqabad ku ah waxa weeye guurkii wax xoolaha maalka odayaashii halkan ay soo fariisanayaan waxay doonayaan yarad iyo gabaati markuu yar yahay $3,000 sodohdina waxay doonaysaa isbarasho iyo fujaano iyaguna $2,000 inantiina waxay doonaysaa dahab $5,000 iyo filinjar 10 mariinkii iyo casuumadii wixii kala warkooda daa xageebu ka keenaa waa qof shaqaalaha $500 qaatay dollarka waxaan ugu xisaabinay wala inagu saleeday oo wuxuu noo noqday waxaynu wax ku binaynaa buu noo noqday marka meeshii waxa ka soo baxay macallinkii quraanka dhigay iyo qofkii shaqaalaha caadiga ah dawladda u shaqeynayay ayaa waxa laga doonayaa waxa qof dadka kale laga doonayo waliba dadkii diinta lahaa ee quraanka akhriyay tasbiixsanay ee tafsiirayay baaba ugu sii daran inantii xijaabnayd marka hore way iska khushuucsantay mar alla marka la meheliyay soo qaraar qaadanaysa marka la meheriyo ayaa leedahay waxa doonto ah wada ruux tumarun baan ahaa wixii heblaayo la siiyay anigana halaysiin Soomaalidu waxay dhan karis xuniyana wax kula haday dumarkii sodohoy iyo hablu guurka qaaleeyaan waxa weeyaan waa guur la'aan marka inamada si dhinka lagu dalacay laga dabciyo garbe u leeyay heerka loo jabiyo ducay dadku ku heli doonaan kharashkana aynu iska yarayno xaasleyduna haynoo badato dhalinyarada dhacdhacaya ama sinaysanaya ama tahriibaya ama iska ciyaaraya bilaa macna ku socdaana marka gabadhay ay ku xidhantay mas'uuliyad buu qaadi doonaa oo qof aynu wax ku halaynaa buu noqon doonaa waa dhalinyaro intaas meena idinku filayn inta Allah inagu afo